I told that to President Erdogan. I said, don't hurt any of our people get hurt. Big trouble. I don't think our soldiers should be there for the next 50 years guarding a border between Turkey and Syria when we can't guard our own borders at home. I don't think so. wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu cunaqabataynta ka qaadayo dawladda Turkiga kadib markii uu Turkigu sheegay in uu joojinayo dagaalka ka dhanka ah Kurdiyiinta dawladda Turkiga ayaa sheegtay inaan loo baahnayn hawlgalladaasi military maadaama oo jabhadda Kurdiyiintu ay dib uga baxeen dhulka ku dhow xadka Turkiga iyo Suuriya go'aanka Turkiga ayaa ku soo beegmay xilli ay dhamaatay xabad joojin 5 maalmood ah oo ay dawladda Mareykanku codsatay madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay go'aanka Turkiga isagoo sheegay inuu qaadayo xayiraadii uu hore ugu soo rogay dawladdaasi dhinaca kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa salaasadii ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah kaasoo Ruushku ku ayiday qorshaha Turkiga ee uu aaga dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga Suuriya ilaa iyo xadka Turkiga heshiiskan ayaa ka soo baxay kulan muddo 5 saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo Putin ay ku qaateen magaalada Sochi ee dalka Ruushka qodobada heshiiskan ayaa waxa kamid ah in maleeshiyadka Kurdiyiinta Suuriya ay 30 kiiloomitir dib uga fogaadaan xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufaysadooda waxa kale oo ay Turkiga iyo Ruushku ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari ilaa galbeed ee aaga uu Turkigu rabo in uu goob dagaalka ka caagan uu ka dhiso ee waqooyiga Suuriya iyagoo ciidamadu ku gaafureegi doona dhul gaaraya 10 kiiloomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Suuriya ee hadda ku sugan dalka Turkiga xoogagga Kurdiyiinta Suuriya oo ballan qaaday in ay ka bixi doonaan magaalooyinka Ras Al Ain iyo Tal Abyad ayay wararku sheegayaan in heshiiskani cusub uu ku qasbi doono in ay baneeyaan magaalooyin kale oo ay gacanta ku ahayaan oo ay ku jirto magaalada Kobani ama Aynul Arab dawladda Turkiga waxay sheegtay in tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya ay ku dishay 775 kamid ah xoogagga Kurdiyiinta dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 78 kamid ah maleeshiyadka jabhadda mucaaradka Suuriya ee ka barbar dagaalamaya hadan ciidanka Turkiga waxa kale sheegeen in rayidka ku dhintay ay gaarayaan 20 qof laakiin hay'adda xuquuqda aadamaha ee kor kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya fadhigeeduna yahay dalka Britain ayaa sheegtay in dagaalkan ka socda waqooyiga Suuriya ay ku dhinteen 120 qof oo rayid ah haddaba maxay tahay sababta uu Turkigu howlgalkan uu marka horeba u bilaabay waxa arintaasi faahfaahinaya Asad Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada London Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisii ilaa waqtigan in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa uu gumaadayo muddo laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay ugu dambeyn wuxuu go'aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kiiloomitir asagoo ujeedka uu socdan ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Syriyaanka ah oo runtii culays badan ku haya dawladda Turkiga sidaad kale ogtahay doorashadii u dambeysay Istanbul markii doorashada la qabtay waxa guuleystay qolada mucaaradka barasharka uu weyn wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa waxay ahayd qaxootiga marka qadiyada qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo barashar ka saaran yahay doorashooyinka soo socda iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha ammaanka runtii isku waafaqo dawladaha arrimaha qodaysan isku waafaqaan saas lagu sameeyo zone control ah dib loo celiyo qaxootiga waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay kala yihiin ay muddo raadinayeen markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen waxa uu gaan ku gaaray inuu gudaha galo dagaalkii waatuu wigi hore bilaabay muddo yar uu socday magaalooyin kooban waatay qabsadeen runtii iska caabin badanna way jirtay ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go'aan lama filaan arrinta ka qaatay Erdogan u saxiixay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo heshiiskan cusub ee u dhaxeeya Ruushka iyo Turkiga ayaa u muuqda mid dawladda Suuriya ee Bashar al-Assad culays ka qaadi doona inkastoo aan la saadaalin karin mustaqbalka Suuriya sida uu ku dambeyn doono sida uu faahfaahinayo mar kale Asad Maxamed qadiyada Suuriya runtii way sii dheeraan doontaa oo xalkeeda maanta miiska in la soo fariisto dadka ay ka go'do dawladaha waaweyn ee hadda faraha kula jira wali go'aan kama gaarin Syria wax laga sameyn lahaa inna Bashar al-Assad uu ku dhagan yahay ninna wuxuu ku dhagan yahay Bashar waa mujrim dagaal sameeyay waa Mareykanka dawladda ururka taageera
kasto markaas la dagaalamayo argagixisa ama daacish la dagaalamayo samiya matalaya asagana problemka haysto waa Bashar al-Assad oo ruush meel ah iyo qolada kurdiyada meel ah marka waa qadad runtii aad isugu akiran oo u baahan dadkay ka go'do inay tanasulaan ama ay go'aan ka qaataan intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo